munaasabadan lagu daahfurayay daarta Abuubakar ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka degmada Raaxo, qaar ka mid ah golaha deegaanka degmada Rako, nabadoono, isimo, dhalinyaro, haween iyo waxgaradka degmada Raaxo. Daartan oo ah mid loogu talagalay dadka danyarta iyo agoomaha ayaa lagu baran doonaa xifdinta Quraanka Kariimka iyo waxbarashada aasaasiga ah. Ugu horeyn, Khadra Xuseen Maxamuud oo ka mid ah hawlwadeenada daartan ayaa ka warbixisay faa'iidooyinka uu leedahay degmada Rako. runtii waxa weeye madrasadan waxa iska kaashaday dad muxsiniin ah oo wanaagsan jecelna inay maalinta dambe oo aan dadku ay waxba awoodin ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro biidnillah waxayna ugu tala galeen danyarta iyo agoonta waliba aad waxa xoog loo saaray oo dardaaran xoog la nagala soo galeen agoonta insha Allah waxaan ku rajaweynahay inaynu ka wada faa'iideysan doono biidnillah ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay subxaanahu wa ta'aala qowlkiisa iyo quraanka kariimka ah aynu kor u qaadno biidnillah balse waxa weeye maxay tooyin baahi jirta baa kuleyba duruuf baa keentay in madrasadan halkan laga furo dadkaas masaakiinta oo maaragtay aan awoodin inay waxbarashada geeyaan ilmahana loogu tala galay in ay maaragtay ay ilmahoodu ay wax ku bartaan insha Allah. sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabada furitaanka daartan ayaa u mahadceliyay dadkii gacan ka geystay intii soo qaban qaabisay intii ka shaqaysay intii maalkeeda ku bixisay intii muruqeeda ku bixisay waa u ducaynaynaa waxaan ugu ducaynaynaa jasaakallahu khayr wixiina wax baraka Allah ka dhigo maal iyo mina iyo muruqba ilaahay antida haydii siyaadiyo waxaan ku sii cayileenaynaa halkaas baad ka sii wadaysaan insha Allah biidnillaahi kariim intii ku soo hawshootay inta hadda ku hawlanba madrasadan dadka soo qaban qaabiyay oo howl galay waxa way aad baan ugu mahadcelinaynaa ma hadda koowaad horta rabbi baa iska leh tan labaadna iyaga baan u celinaynaa insha Allah ilaahay ajri iyo xasanaad ka siiyo annaguna bismillaahir rahmaanir rahiim meeshatan agoomaha iyo danyaraha aad bay ugu badan yihiin aad iyo aad been ugu baahnayn intii ka soo shaqaysay iyo inta muxsiniinta oo dhaqaalaha kula baxday iyo inta ka faa'iideysanaysaba aad baan ugu mahadcelinayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa ajar iyo xasanaad in ilaahay ka siiyo inta dhaqaalaha ku bixisay iyo inta insha Allah hawsheeda ku jirta iyo inta niyadda ka jecelba هذا الصلاة إله بقى مهد إسكاله إلهي بقى كين سكاني سجى مهد إسكاله وحنو مهد علينا إن مركا لبعض وحنو مهد علينا إن تدكي كسر شقية رنكان ما إنه أهين أو خير دمر بق دليل الدبت بق مدي كسر شقية سي مدرسة دان قرآنك يعني مهد علينا إن إله بقى مهد إسكاله وأنا أدعو عيني إن وحن لنا هاي إلهي muruqooda iyo maalkooda iyo maskaxdoodaba waxa la ka dheefsiiyo cidii xalaal gelisana miyi iyo magaalaba ilaahay waxa ka dheefsiiyo adduun iyo aakhiraba ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka degmada Raaxo Cibaado Cumar Maxamed ayaa sheegtay inay tahay mid baahi weyn loo qabay oo ayna ka qayb qaadan doonaan maanta waxa degmada Raaxo lagu daahfurayaa madrasada Quraanka Kariimka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa wax ay u baahneen degmadu waana horumarkii degmada weeye waxaan halkan ilaahay baa mahad iska leh uga mahad celinayaa gabdhihii iyo wiilashii ee deegaanka Raaxo degmada u dhashay oo hawshaas waxa weeye ka soo baahi tiray dadka danyarta oo masaakiinta iyo agoonta maadaama ay degmada ay ku badan yihiin horena u sheegnay dadka danyarta iyo masaakiinta agoonta haysan waxay waxbarasho ay ku tagaaneen sideen ognahay degmadu dugsiyo quraan waa leedahay waa ilaahay mahadiis laakiin waa dugsiyo u baahan in mar walba ardaygii lacagtii laga bixinayo marka dadkii agoonta iyo dadkii danyarta guryaha ayay wada fadhiyaan sideen ognahay maanta tan waxa uu tahay guul u soo hoyatay dadkii agoonta iyo danyartii waana wax ilaahay loogu mahad cesho gabdhihii iyo wiilashii arrinkan ka soo shaqeeyay waxaan leenahay jazakallahu khayr Axmed Xareed Gamuute Puntland TV magaalada Raaxo